عقيس اللجوري يعني صدح نينو إصلاة دلتي كانوا يغزون ويدولان بي آذين مركز عن نمانك رير روم الأورنجري أيا قفاشو قبصديوه ninkii boqorka ahaa ee reer Rum xukumayaba wuxuu u yiri saddexdii nin la soo qafaashay buu la hadlaya inni aj'alu fiikum al-mulk madaxda dawladda idin ku daraya madax baan idin ka dhigaya wa uzawijukum banati gabdhahaygina waan idin guurinaya wa tadkhuluna fi diinin nasraniyya diinta nasraniyada soo gala madax baan idin ka dhigi gabdhahayga idin ku dari wax walba waa la idin siin laakiin diintan ka soo baxa islaamnimada fa abaw way diideen markuu kari waayay yaa wuxuu yiri saddex dhari hal la ii keeno saddex dhari baa loo keenay saliid baa lagu shubay markaas dab la saaray saliid baa lagu karkariyay ay saddex dhari marhaban markaas uu u bandhigay nasraaniyada wardiintan isaga baxo nasraaniyada gala waa diideen marhaban fa ulqiya al-akbaru ki u weynaa baa lagu riday ninkii saliidda karkaraysa lagu riday bas way Soomaa hal mar ay naftu ka bixi marka labadii kala la hadlay oo yiri wariyaa ka soo baxa diintan waa leeyahay wad badbaadaysan waa diideen kii ku xigay baa lagu riday hadana waa ninkii dhexe labada meeshaas ay ku dhinteen marhaban kii u yaraaba marka meesha ku soo haray markaas la adigana sidaas lagu yeeri hadaa islaamnimada ka bixi way hadaa islaamnimada ka bixi weydo oo nasraaniyada qaadan weydo marka baxaya buu aniga asagoo la rabay in asagina lagu rido waaya yaa waxa u soo kacay nin yani reer Ruumkii kamid ah oo boqorka darkii u dhawaayay madaxda ay u dhawaa oo nin weyn oo xoog badan ayaa soo istaagay markaas uu wuxuu yiri ayuha al-malik boqorkano ana uftinu an diini ana diintiisa ka fidnaynaya waa nin yaro dhalinyaro hadilina iska dhaaf waqti baa u dhiman ninkan marka ana fidnayna in diinta laga bixiyo soo maraysaanimada ana ka saaraya iska daa marxab qaala wuxuu yiri bimaada waaka ninka wax walba lagu cabsiyo la kari waayo wax walba aan ku daynay seed oga saaraysa diintiisa qaala wuxuu yiri qad calimtu waxaan ogahay anna al-araba asra'u shay'in ila an-nisaa hawa yani arab waxay ku fidnowdo ugu degbadan waa haween naagaha aad u jecel yihiin waaye walaysa fi ar-rumi reer rum dhexdooda kuma sugnay ajmalu min binti gabadheeda wax ka qurux badan reer rum kuma jirto gabadha rum ugu qurux badan reer rum ana dhalay ana hayid arabna hada waxay ka naaga jecel yihiin malabu ko faat aaya aniga ii dhibir fatfacu ilayya hatta ukhallihi ma asagiya gabadhan baa guri cidlaan ku xireeyay markaas uu ku fidnoobayay aniga iida gabadh aan hade ninkii hade arkay un iska celin karin baan hayaa ana fidnaynay ko marhaban fadfacu ilayhi wa udibay wa daraba lahu ajalan 40 yawman afartan bari baan ku qabanayaa afartan bari ninka hada diinta uga soo saarto dani wax kala hata hadii kala de waxa jeegaysa xoog ma jira Soomaa way u dhib fajaa bihi walaymid wa faadkhalahu ma'a ibnihi fi mahallin asagiya gabadhiisi buu meel isla galiyay wa akhbaraha bil amri gabadhana amarkiiba u sheegay arintaas dhacday hada ninkaana la rabaa in diinta ka saarto ninkaana diinta ka saarto ayaa la rabaa de boqorka agtiisa jaayizo weyn baad ka helaysaa waa lagu abaal marinaya ninka diinta ka saarto waayahay batri guri meel baa cidlaha la wada geeyay fa aqama indaha saa'ima an-nahari wa qa'ima al-layl maalinkii oo dhanna waa sooman yahay habeenkii oo dhanna daacub la salaad buu taagay gabadha waa iska fadhida waligaaba isqurqurxi waligeed baa isga gadiso madan buu ka leeyahay nin waxa ogba ma hade bas habeenkii oo dhanna salaad buu ku jira maalinkiina waa yani waa soomay hatta madaa ila ay tagtay aktharu al-ajal مددي بواح يربا كده من فرتن كبريو فقال العجل با وحو يري كي وينا اي غبد دلي لابنته ما صنعت محاسمه هي هوشي ما يسبدلي قال waxay tiri هذا رجل نوي فقد ابو اخويه لبدي لا دلتay buu waayay fi hadi albalda magaalada tan allaha lagu fidnayo oo gabarha ku fidnooba allahay waa magaaladii labadii wiil walaalihiisa lagu dilay shalay lagu gubay وايه وربما ان يكون امتناعه بسبب رؤيه اثارهما ninka waa nin kurbaysan boo shalay walaalihii la dilay ee saliid karkaraysa lagu riday marka wuxuu aniga isoo milicsan yahay waxa laga yaabaa yani wiilashii buu la sii arintoodii yulasi murugsan yahay magaalada tan dhexdeeda intuu joogo waxaan qalbigiisa kaba go'aynin wiilashii loo dilay walaalihiisa marka arintaasan u malayn inuu yani isla bedeli laayahay boqorka ku noqo muddada nooga soo ziyaadi ninka boqorka
magaalada tanna naga bixiyo meel kale nage ani ninkaan waxaa laga yaabaa inuu iska iloobo markaa walaalihiisu markaa geeridoodii uu iloobe fafacala wuu yeelay oo maa amaratu bihi waxay gabadhiisii amartay wa akhrajahumaa ilaa qaryatin magaalo kaluu u qaaday famakasa ayaaman kamaa kaana saa'ima nahaari qaa'ima leyl meel kaluu geeyey waa iska sidin 40 kaloo haddana muddadii 40 kalaa loogu soo daray waa iska sidiiba haddana xataa qaruba intihaau lajal muddadii labaad 40kii labaadna wax yar baa ka dhiman fasaaye faqaalat lahu lbintu intuuna odaygii u imaanin oo u idin dhihin haye ninkii xaalkiisa ka warran uusa dhihin gabadhii baaba ilaahay daayo ku rido waxay u tiri ninkii yaa haadaa war nin yahow innii araaka waxaan ku arkayaa tuqadisu rabban rabbi inaad caabudayso cadiiman weyn wa innii qad dakhaltu macaka fii diinika diintaadaanba soo galay diin cajiibaad haysataa rabbigaaga aad ku kalsoon tahayna waa rabbi weyn marka diintaadaama soo galay wataragtu diina aabaa'i aabbahay iyo awowyaalkay diintoodii waaba ka tegay aniga diin fiicanba maahayn wa faqaala lahaa wuxuu u yidhi fakayfa alxiilatu fi lharab waayahay anigaa hadda anaaba maxbuus ahaayo hadda in la idila diyaaro ahaaye adiga haddaad ila soo islaamtay sidaan u baxsan lahayn sheeg sidaan ku baxsan lahayn meesha waa nalagu ilaalinayaaye aabbaha baa nagu og meesha na geliye sheeg bal xeeladaan ku fakan lahayn marxaban anaa kuu sheegayay tiri ani hadda nina ima yani irre igama qabee aabbahayna waa nintaa jire anaa labadii faraska aan ku baxsan lahayn anaa keenay habeenniman baan meesha ka baxaynaa waan dhaqaaqaynaa wey waaye faras bay keentay fajacalaa yasiiraani bileyli wayakmun aaye waaye wayakum yani minaani binahaar faraskii unbay ku dhaceen habeenkii oo dhan way guurayaan maalinkii markuu waagu baryana meel unbay gelayaan lama arkayo maalinka oo dhan meeshaadi ku jiraya haddii yani lasoo raadiyo qol haddii mogta meeshan ay mareene marka maalin oo dhan meel bay ku jirayaan habeenkii oo dhanna waa soconayaan marxaban waa la waayey marka xaggee laga fa baynamaa waqtihumaa ayagu yasiiraani ay soconayaan leylatan habeenkii dambe ayagoo guuray id samicaa waxay maqleen waqca khaylin fardo ayay maqleen ay fardaha mogta waa la zajriyaayo markii yani la kaxaynayo marka fardo shanqartood baa yeelaya dad fardo saaran waay marxaban markay is istaageenba fa idaa huwa biakhaweyhi waaba labadii wiilo walaalihiisa ayoo la dilay shalay way waxa fardaha saaran ay labadii wiil ee meesha ku shahiidoo la gubay baa laba fara saaran wa macahumaa malaa'igna way la socotaa fasallama calayhimaa wuu salaamay wa sa'alahumaa can xaalihimaa waataad dhimateen oo yani saliidda karkaraysa laydinku riday bal warrama xaalkiina faqaalaa waxay yidhaahdeen maa kaanat ila saqdatu alatii ra'aytahaa xataa kharajnaa ila alfirdows dhicitaankii aan kusii dhacaynay oodna arkaysay intaa unbaa dhibaato noogu dambaysay markiiba firdowsaan galnayba waxa naarta aan moodaynaba waa jannaana ilaahay nooga dhigay oo firdowso maan hole u galna jannada firdowsa waa jannada firdowsa waa wa ina allaha ilaahay arsalanaa wuuna soo diray ilayk ilaahay adiga ayuu noo soo kaagay linashada inaan ka markhaati kacno oon markhaati ka noqono tasawujaka bi hadihi alfataat gabadhan yani macaaga rumaysay muuminadaa rabna inaan kugu nikaaxidho ilaa hadda yani ajnabiga keliyiina waa laakiin gaalada unbay ka soo carareen oo labadooda unbaa iimaan lasoomaa muuminiina fazawajuuhu way u guuriyeen iyahaa warajacuu way iska laabteen wadahaba huwa ilaa bilaadi shaam wiilkiina gabadhiisii wuxuu la aaday shaam fa aqaama biha shaam buuba la degay halkaasu ku noolaaw muddo wey marka haddee ninka markuu diintiisa dhab u qabsado oo ilaahay u naseexeeyo waa naseexada ilaahay wey lilaahi bay u tahay diintu naseexo u tahay taasaa ilaahay u abaalmarinaya